السلام عليكم ورحمة الله وbarakaatu asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudan adeed baa idin salaamaya waxaan rajeynayaa meel walbaad joogtaan caafimaad qab iyo barwaaqo iyo bashbash ku sugantihiin ilaahi subxaana watacaala ha idin xifdiyo allahuma aamiin maanta waxaa inoo wada cuntaa caafimaadka runtii wanaagsan nebiga sala allahu calayhi wasalamna oo inagula dardaarmay inaan isticmaalo waqtiga murwada lagu jiro ilaahi subxaana watacaala murugaha inaga fogeeyo run ahaantii aniguna waxaa arkay calooshan aad uga wanaagsan tahay waqtigaad dareemaysa gaaska in caloosha ku ololeyso way ku anfacaysaa haddaba saan u sameeyey waxay ka koobantahan isla daawano ko waxaan soo qaatay koob caana ah caana fresh ha noqdaan ama ha noqdaan caana booraha waa isku midba caanaha haysatid kadibna 2 mulgacdood talbiina ayaan kusoo shubay kadibna dabka ayaan saarayaa dabkana wax badan ma qaadanayso ugu badnaan 5 daqiiqo hadday saarmaato waa bisishahay dabkii waan saaray waa soo karkartay alxamdulilah waan kasoo qaaday hadda waxaan kusoo daray malgacad yogurt ah ama caanaha fadhiya ee dhanaan kadib si fiican baan iskugu walaaqay halkaa markaa marayno xalaalo waxaad jeceshayaad ku darsan kartaa aniga waxaan kusoo darsaday yaro malaba kadibna waxaan ku daray xabatal baraka ama xabata sawda waxaan kusoo daray yaro sabiiba fruit waad gelin kartaa yani wax walbaad gashan kartaa talbiinada sawirkeedana videoga qaybta u dambeysa ayaa idin soo dhigaya saa u fahantaan talbiinada ama u aragtaan waxaa rajeynaa soo tijaabisaan caafimaadka runtii aad iyo aad buu wanaagsan tahay waad ku mahadsantihiin walaala qaaliga waqtigiina qaaliga isiisteen aad iigu daawateen waxaan idinka rajeynaya like fara badanna videoga ii saartaan jasaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu